Audio Jungle. Audio Jungle. in yar baan yar nasanay marna qalbiga la yar doojinaya marna maskaxda la hadlaya in yar baan maskaxda la yar hadlayna markaa imanka maasada magaceeda Soomaalinimo la yiraahdaa Hargeysa malaba la yariyan la hadaan ku soo bandhiga maasada moogta maasada magaceeda waxa la yiraahdaa Soomaalinimo waxa weeyaan qofka Soomaaliga mushkilad baa haysata waa bilaabaday soo qofka Soomaaliga identity crisis baa ku dhaca qofka Soomaaliga mar waa islaam waa muslim oo sunni weeyaan marna waa afrikaan marna waa Soomaali marna waa qabiil marna waa dawlad dibadda qofku Soomaaliga gibigiisa wuxuu ku jiraa wuu israadinaya wax allaaliya wuxuu sheegtaa buu garan laaya halkan intii aan joogay iyo halka markii aan joogay waxaan aad u dareemay qofka Soomaaliga inuu israadinayo cid uu yahay Hargeysa markaan joogo wax allaaliya waxaan sheegtaan garan waaya ma Soomaali baan sheegtaa Somalilander baan sheegtaa ma qabiilkayga aan sheegtaa wax allaaliya waxaad sheegataad garan waaysid dibad maxaa dhacaysa markaad soo yara socoteed Soomaalida soo dhex gasho markaad Afrika joogto Afrikaan baad sheeganaysaa Carabta hadaad dhex gasho Muslim baad sheeganaysaa Soomaalida markaad soo dhawaato Soomaali baad leedahay Soomaali markaad gudaha yar gasho waxaad leedahay Somaliland markaad si yar gasho Hargeysa markaad qabiilkaaga daanta degto mixnad caynkaas furmaysa halkan markaa mushkilad taas oo kala ah laakiin kaba sii daran baa jirta way anaga cidina lama degto laakiin idinka waxa idin dega qabiilooyin kale iyo ummado kale iyo sinjiyada kale idin la dega idinku markaa maansadan waa nooga baahi badantiin way anaga Soomaali baa nagu xeersan laakiin idinka waxa idinku dhinac waxa idinka xiga qowmiyada kale idinka xiga waliba qowmiyadaha kalena dawlad baa wadaagtaan inaad isqeexi taqaanaa kolka oo waxa aad tahay aad isqeexi taqaanaa qayb weyn bay ka qaadanaysaa inaad dalkan ku faanto oo aad jigjiga ku faanto magaalada ku faanto haddaad si isqeexi kari weydo oo waxa tahay aad isqeexi kari weydo mushkilad weyn baa kugu dhacaysa oo garan kari weydo kani wuxuu ku yahay kana wuxuu ku yahay haddaad garan weydo mushkilad weyn baa kugu dhacaysa aan soo durko waliba nin baa markaa maalin la soo hadlay maasadu say ku timi marka garan maayo meel buu joogaa wuxuu yiri barnaamij baan daawaday heblaaya ku wareysanaysa caynka waxaan doonayaa inaan ku hambaliyeeyo waa sax wal maasantaan ku yiri uu soo durka markaa wuxuu igu yiri waxaan rajeynayaa inaad tahay dadka aqligoogu furan yahay ee aan Soomaali diidka ahayn ee aaminsan midnimada Soomaaliyeed ee aan Soomaalida diidanayn marka xaafada aabiye ma leer fidhiyo aan ka soo kacay maxaad u jeedaa baan ku yiri marka Soomaalida diidanayn dib waxaan boqolkan calan iyo mixnadahan la inagu furay iyo waxaan madaxaaba ma garanaysaa marka Soomaali diid weeyaan waxaasi markaasaan ku yiri inteed qurbaha joogtay markaas igu yiri wallahi carruurtaadan gabayada markii hore igu laamka carruurtaadan gabayadaada dhageysiyaa buu leeyahay marka carruurtayda ayaan gabayadaada dhageysiyaa buu leeyahay way marka 30 sanaad qorbo ku maqnayd 30 sanaad dalkii arag carruurtaadu maba xiiseeyaan oo gabayadaydaad ku sasabtaa adigii intaasaad maqnayd dalkaaga ma arag labadeena iyama Soomaalisan baan ku markaa ana Hargeysaan ku dhashaan ku koray iyama Soomaalisan labadeena maxaan uga socdaa markaa dareenka ku dhalatay waa qisada laakiin maxaan uga socdaa waxaan uga socdaa waxa weeyaan Soomaalidu waxay aad isku khaladaa sinjiyada iyo dawladnimada sinjiyadaadu waa Soomaali haddaad 100 calan taagato 100 calanka Israa'iil haddaad barta ka taagato Soomaali baad ahaanaysaa sinjiyadaada ninka isku dayay inuu ka bedelo ama isku dayay ku raad haddaad rabto inaad Soomaali noqoto Hargeysa tag haddaad rabto inaad Soomaali noqoto Muqdisho tag maaha Soomaaliyadu Soomaalinimadu waa inay magaaladaada taala Soomaalinimada jigjiga ka weyday Soomaalinimada aad jigjiga ka weyday Hargeysana ka heli maysid Muqdishona ka heli maysid Soomaalinimadaadu waa inay bartaa taala ninka isku daya inuu barxo sinjiyadaada ninka isku daya inuu barxo waa inaad la dagaalantaa ha ogolaanin marna ha ogolaanin mushkilad baa markaa jirta
halka hore markaad u socoteed koonfur tagtana Soomaalinimadii calan bay noqotay Hargeysa markaad joogtana war inaga wadaaya Soomaalinimada mixnadana ka sheekeynaya waa maxay haystaba haystaan Soomaalinimada Hargeysana Soomaalinimadii baa lagu bedeshay siyaasad halka shishana waxaad moodaa in siyaasadii gibigeediba laga dhigtay Soomaalinimo imika tusaalayn siinaya madaxweynaha Soomaaliyeed waayo madaxweyne Soomaaliyeed ku jooga imika hadduu jiro ilaa inagu madaxweyne inoo wada yahay ma jiro sinjiyadu siyaasad maaha sinjiyadu waa afka waa dhaqanka waa taariikhda waa ummadnimada weeyaan siyaasaddu se way ka duwan tahay siyaasaddu way isbedbedeshaa Soomaalidu Itoobiya noqon kartaa Soomaalidu Kenya noqon kartaa Soomaalidu Djibouti bay noqon kartaa Soomaalidu Soomaaliya noqon kartaa laakiin haddii labada la isaga ka daro waxa kugu dhacaysa waad iskaran waayaysaa waxa maxaan sheegtaa baad oranaysaa waxaad sheegataad garan waayaysaa dibad waxa suuragal ah ninka calanka haysta inuu kuraado iskaga bax calanka maad seetaa may matiid Soomaaliya iskaga bax aad maad seetaa calanka buluuga may ka bax Soomaalinimada aad maad seetaa iskaga bax Soomaalinimada calanka buluuga soo qaata dikal ka bax Soomaalinimada waxaan anigu aaminsanahay laga yaabaa inay iga aragti duwantiin caawana rabaa inaan idin soo bandhigay waxa weeyaan sinjiyadu calan ma yeelato dawlad baa calan yeelata hadday igu waafaqsantiin iyo haddii kaleba sinjiyad ma yeelato calan laakiin waxa yeelata dawlad baa yeelata dawladda Itoobiya calan leh dawladda Djibouti baa calan leh dawladda Kenya calan leh Somaliland waan ku darsanaa anagu iyo dawladda Somaliland calan kale waxaan ka wadaa markaa waa maxay waxaan ka wadaa taadama hoos ka tuur bay laakiin laynama ictiraafsanay laakiin waynu ku tuuraynaa waxaan ka wadaa waxaan markaa mafhuumka aan doonayay inaan idin sheegaa waxa weeyaan hadaa aqbashaan inaad Soomaalinimada Muqdisho iyo Hargeysa ugu tagtaan Soomaalinimada waa la idinka saari doonaa maalin dhow ha ogolaadina in la idinka saaro Soomaalinimada waxa ogaataan jigjigayaa ka Soomaalisan maanta alla idinku dhaariyay jigjigayaa ka Soomaalisan laba intaasoo kun oo qarni baa awooyaashin halkan deganaayeen oo qowmiyad kasta la deganeeyeen haddana maanta marka jigjiga joogto wallahi baanu qof xabashi ku dareen af Soomaaliga waa wallahi waan wada dhageystay dhalinyarada oo dhan af Soomaaliga qofka reer jigjiga af Soomaali ka badax tiran oo sooca weeyaan intaasoo kun oo qarnina waxa la deganeeyeen qowmiyada kala duwan yaa idinka Soomaalisan Hargeysa ma aragtaan nusba Ingiriis lagu wada hadlaa qofku markuu hay'ad tago haaf Ingiriis ku hadlaa deegaankan yaa ka Soomaalisan deegaankan waa deegaankii geela ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqnaa waa deegaankii gabayaaga ugu waaweyn ka soo bixi jiray deegaankan haddii Soomaalinimadiisa shaki la geliyo oo shaki loo geliyo maadaama calanka la sito yaa Soomaali noqonaya waxa isku daydaan markaa khaanada sinjiyadu waa khaanad aan muran gelayn magaaladaadana laga qaataa Soomaalinimada iyo sinjiyadaada meel kale looma doonto anigu Soomaalinimadeeda Muqdisho uma doonanayo Hargeysa waa inay igu timaadaa anu Hargeysa ku koray oo ku dhashay inta alle hadduu qofkii guraa Soomaali mid halkeen Soomaali ku noqonaya halkee jigjiga adoo jooga haddaad Soomaali ku noqon weydo jigjiga halkeed ku noqonaysaa Soomaali ku noqon maysid meel la siyaasaddu laakiin waa sheeko kale siyaasadda idinka ikhtiyaar kale hal doorkiina jooga siyaasiyiintiina jooga meel allaale samada madowga hadaa u aragtaan siyaasad samada madowga taga idinkoo Soomaaliya meel allaale meesha doontaan ku darsada idinkoo Soomaaliya siyaasaddu kuma xidhna shalay 60kii Hargeysa waa la ooyay waxa loo ooyay midnimo Soomaa maantana lama soo hadal qaadi karo marka ma waxa la oranayaa shalayna Soomaali baa ahayn maantana waa gaalo eeg siyaasaddu way isbedbedeshaa shalay meel baad dan u arki karaysaa maanta uma arki karaysid shalay dawlad baad ka tirsan tahay maanta kama tirsan siyaasaddu saasay isu bedbedeshaa dhibaato male doorasho lagu helaa waa dimuqraadiyad kolba dawladnimay ku xidhan tahay taas calan bay leedahay passport bay leedahay laakiin sinjiyadiina marna gorgortan ay gelinina hana ogolaanina in sinjiyadiina gorgortan la geliyo waxa ugu horeeya ee tahay waa Soomaali waxa ugu horeeya ee tahay waa Soomaali markaasaad noqonaysaa dawladdaada iyo baasaboorka aad seetiyo calanka aad seeto calankaagana taa ku sido sinjiyadaadana bartaa ku sido yaan la isku dayin labada la iska ka dhex dhigo
oo lagu dhaho Soomaali ma tiid hadaanad calanka Soomaaliland sidan Soomaali ma tiid hadaanad ka buluuga sidan yaanta la isku in la iska ka dhex dhigo marnaba ha yeelin anigu waa sidan aaminsanahay Yaxya ahaan waa sidan aaminsanahay laakiin kulli way iga aragti duwanaan kareysaan marka waxaan doonayaa inaynu baranno inaynu kala aragti duwanaan kareyno la aqbalina karayo lana liqi karayo in la kala aragti duwanaado inagoo isqancin iyo wada hadal ku dhameynayna ma sida magaceeda Soomaalinimo la yiraahdaa Soomaalinimadii marka waa la khalad fahmay Soomaalinimadii sinjiyada ahayd baa siyaasad laga dhigay waxaynu doonaynaa marka inaynu qeexno waxay Soomaalinimadu tahay ma sadana marka qeexaysa tixi waa sarbeeb surin ruux lahaa isagoo ku siman laga sogorto hood dabadeed soco cagta saar la yiri marna waa sifayn sugid iyo ilayn sixid iyo cadayn kolka shay samow sidii qorax ahaa caad loo sasabo luun kugu sarnaa sacabkaaga oo subag laga shubtaa sahay kuu noqdee baabaca saluug surmi kaama tiro sir ma sheegayee waxaan uga socdaa Soomaalinimo mala seylad iyo sicir lagu gado han siyaasadeed lama siisan karo han siyaasadeed lama siisan karo diintaas waa kan qeexinteedii diintaas soo dhaqanka u sada dharku waa u sumad soorta u cada afku waa u sahay sabad iyo kobtuna saameyn ku leh Soomaalinimo qof su'aalayo calan kuma suntana cidma seerano qolo kuma sidkana mana aha salaan siyaasi meel sare ku koro sir maaha oo lama sii sarrifo lama yiraahdo anaa ka Soomaalisan anaa ka lama sii sarrifo Soomaali waa Soomaaliyoon sir maaha oo lama sii sarrifo waa siman Soomaalido waa sawrac iyo sinji aan ummada kaga soocano ma sariigan karo sagaal baasaboor ninka sii sitow Soomaalinimo lama sayri karo Soomaalinimo qof ka saaris yiri sibiq ima tiro waa saxiix rabbigu idul saarayo xididkeeda sugan uma siibi karo haddii lagu sidko inta lagu sibciyo gaf siyaasi galay dawa saxal tirtiye looga dhiga sabiib wax ma saacidee sunta iyo ladhka seedaha gasho darsanaado oo Soomaalinimo saska qaadayay simankaas dhasha haddii maanta balaaya dhacdo oo la islaayo la isxasuuqo on ku raado Soomaalida ka mas'uulahayd ka waran de kuwii la laayay way ka xanaaqayaan Soomaalinimada Soomaalinimada kolka ma qaadata iyadu gafka ma qaadata xataa haddii qof wax laayo qof wax xasuuqo qofkaas xasuuq xataa qabiilkiisa ma qofkaas uu baa ka mas'uula cid kale mas'uulka ma aha qabiilkiisu mas'uulka ma aha sinjiyada Soomaalida oo dhan qofka xasuuqa sameeyay qofka wax laayay baa mas'uulka ah haddii se lagu sugo oo Soomaalinimada la marmariyo de qaar ka booda soo baxaya Soomaalinimada saska qaadaya Soomaa waxaan uga socdaa ereygeeda samee waa saxar la'aan sifadu yahay waa qurux markaan leenahay ereyada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maxay qurux badana magacu marka saa leeyahay laakiin haddii uskag laynaga marmariyo kuwa uskaga la marmariyay baa ka xanaaqi doona magaca marka haynaga marmarinina uskaga siyaasadda Soomaalinimada haynaga marmarinina waxaan uga socdaa ereygeeda samee waa saxar la'aan sifadu yahay sahan aanay wadan magac aanay suran madax aanay sidan yaan lagu sawirin yaysaad u noqon sad bursiima iyo ninka saayid raba yay soo xisiyo dadka seexad farin marna sayma iyo cunfi lagu sallimin salfudaydka jaan waan salow badnee saajin raba dagaal yuu igu sasabin sidaheeda bilan yaan la igu sirin Soomaalinimo waa jacayl sadriga ka saaqaye midna cayb ku simay yaan la igu surin yaan siiri wade koox kala la sifan qaladkayga sixin
sababaynta guud waxaan uga socdaa way sal guurtayo way simbiitayo saxal baa galo waa lagu saxdaye Soomaalinimo haddii lagu siqo lagu kala sad yahay haddii baasha la kala xigo oo la kala leeyahay ya haddii baasha la kala leeyahay Soomaalinimo haddii lagu siqo lagu kala sad yahay siinay baan ku koray dugsigii sariye kaygii sokaba kobtanaan ku sugay saan qaadayo ilaa saakadaas sikin maan ka tegin af Soomaaligana suugaan duxlaan siin kuu marshay Soomaaligee Soomaalinimo sikad iga xiga maansidaas intaasay ku eg tahay Audio Jungle. Audio Jungle.